بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تكسوغا وحوت المام هي دولة ما قوم مال السقومي مادان قري قريا إلهي كمده يقول ربي قد حصيه hadday se taasi dhacda buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in ilaahay malaa'igtiisu ay soo degto hareerayso jamacaasi yacni waa meel naxariis iyo raxma ay ka jirto ilaahayna il gaara ku eego waa kii xadiidka kale tilmaamayay isna saxiixa ah dadka muslimiinta ah hadday meel isugu yimaadaan qoom baa meel isugu yimi ilaahay xusay malaa'igtaa ilaahay u soo diraa maxay qabanayaan waa loo sheegaa isagoo rabbi og subxaanahu wa tacaala akhiiran baa ilaahay yidhaahdaa markhaati ka noqda dembigooda dhaafee markaasaa la yidhahdaa yaa rabbi waxaa ku jira nin isagu xaajo baahi kale dan kale u yimi ee aan u imanin dikriga iyo xuska aynu ka qayb galo إلهي سبحانه وتعالى وحق المامين قوم لا يشقى بهم جليسهم ودول عند الله فرد أنا يقول دريسنين هذا إنه أنت نسقون نمي إنه إلهي حصوصنا سبحانه وتعالى دين تينا وحسق الشيخنا وحين قرنكرنا وحكو أغانو وحن رجينا أن يدون إنه هقاتي السنة سر ربينا وقدره kuwa ku tilmaamayo qowmun laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwa ilaahay dembigooda dhaafaya u naxariisanayo ama kuwa lagu tilmaamayo xafathum almalaa'ika oo malaa'igtu waqashiyatuhum alraxma uu nebigu ku tilmaamayo inay malaa'igtu hareeraynayso een ilaahay naxariistiisuna inay koobayso marka ha loo dadaalo meelaha ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo weynidiisa iyo cibaadadiisa iyo hadalhayntiisa lagu hayo casrigan dambe dadku waxyaabo kale u dhegtaaga dee waxaan arkayaa dadku magaaladu masaasay dhallinyaro unu tahay laba oday baan idinku dhex arkayaa baan u malaynayaa inta kale wax madaxa ciro kule ma arkayo haddaad dhallinyarana noqotaan ilaahayna xustaan ilaahay waa la cajabaa buu nebigu tilmaamayay شاب لا صبوة له ويلان كفكف لهين ويل طريقة توسكا يان كفكف لهين ربي بلع عجبال وقت المامية إذن وحمد الله هل كان كسي وضع إلهنا سبحانه وتعالى حق هين قصقو هين قرات سيو كوي جتكي النبي محمد راعة عليه الصلاة والسلام هي انت الرالي كي هي جيت كودي إلهي نقوى ضيارة السلام عليكم ورحمة الله